بسم الله الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وسلم. waxaan maanta halkan ka salaamayaa bulshaweynta reer Puntland meel kasto ay joogaaneen waxaan leeyahay assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. runtii safarkii dheeraa ee aan ku marnay gobolada Puntland ee qaatay muddada ku dhow bisha ka bacdi waxaan u baxnay dalka dibadiisa oo aan shaqo ku aadnay alxamdulillah sin guul ay noogu soo dhamaatay dalka ayaan ku soo noqonay waxaan joogaa maanta magaalada madaxda Puntland ee Garowe. runtii waxaan doonayaa inaan qodobo dhowr ah aan halkan maanta aan bulshada kula wadaago. qodobka koowaad waxa weeye waa guddiga khilaafaadka sida aan la socono runtii horena aan baaqiyo uga soo saarnay war saxaafadda uga soo saarnay. guddiga khilaafaadku wuxuu wadadii loo maray ee madaxweynaha xilka ka sii dhamaanayo oo u maray ma ahayn wada dastuuriya dariiqa dastuuriya oo dadku iyo ummaddu ay musharaxiinta iyo ummaddu ay isku waafaqsan tahay. runtii magacaabitaanka ka bacdi waxaan leeyahay dadka guddiga maartay uu ka kooban yahay dad runtii xilkasa oo bulshada sharaf ku leh weeye oo ummaddu ay u wada qirtay inay dad wada sharaf leh ay yihiin. laakiin guddiga aqbalitaankiisa iyo diiditaankiisu waxaan aaminsanahay waxa uu ku xiran yahay waxa ka soo baxa iyadoo aan filayo in wax wanaaga ay ka soo baxayaan haddana waxa aan leenahay wixii bulshada u soo saartaan maxaa yeelay bulshadu iyada soo doortay xildhibaanadeeda iyaga soo doortay. Soomaalidu waxay yiraahdaan magaalo waa madal inta joogtana waa marag. bulshadu aad bay isaga warhaysaa sida ay u soo xusheen xildhibaanadooda iyo dadkii ay soo xusheen haddii dad xalaal ah oo dadkii ummaddu ay soo xulatay oo ay ku qanacsanaayeen bulsho walba ama qoys walba ama reer walba ay ku qanacsanaayeen ay meesha ka soo baxaaneen waxay taas u keenaysaa inay musharaxiinta iyo bulshaweyntuba ay aqbalaaneen waxa ka soo baxa. haddii wax khilaafsan ay ka soo baxaaneen oo runtii de wixii tuhmadda laga qabay maadaama guddiga uu magacaabay hal musharax uu magacaabay waxay keenaysaa in ay bulshadu ay khilaafto musharaxiintuna ay ka soo horjeedsadaan waxa beeshaas ka soo baxa taa mas'uuliyadeedana waxa qaadaya iyo cirib dameedka ka dhalanaya waxa qaadaya guddiga doorashooyinka ayaa qaadaya. runtii dawladda iyo madaxweynaha hadda xilku ka sii dhamaanayo waxa aan shalay lagu eedeynayay inay abuureen xildhibaano aad u kala duwan oo aynan bulshadu waxay isku waafaqday aan ahayn inay maaragtay raadkooda aad uga muuqday. runtii waxaa kaloo nasiib darro ah maanta waxyaabaha ka soo baxaya madaxtooyada oo dadku ay runtii isla dhex marayaaneen inay yihiin waxyaabo qalbiga dhaawacaya bulshadana runtii geliyay cabsi inay ka qabaaneen waxa uu guddiga ka soo bixi kara inay cabsi ka qaadaaneen. runtii waxaan marka leenahay dawladda xilka sida maanay madaxweynaha xilka sida dhamaanaya waxaan leenahay bulshada iyo xildhibaanadooda faraha kala baxa aamina guddigii aad doorateen ku kalsoonaada. waxaan rajaynaynaa inay wax ummadda wada qanciyo guddigaas soo saaraan marka waxaan uga digaynaa inay abuuraan wax u dhimi kara amniga iyo wadajirka ummadda reer Puntland inay abuuraan ayaan uga digaynaa. runtii waxaan kaloo rabaa inaan taabto xaaladda magaalada Boosaaso oo runtii amnigeedu uu meel xun u marayo. waxaad ogtihiin maalin kasta lagu dilayo magaalada Boosaaso dad wax ku oola bulshada dadkii wax ku oolkeeda ahaa in maalin walba lagu dilayo. Boosaaso waa magaalada lafdhabarta u ah dhaqaalaha iyo ganacsiga dawlad goboleedka Puntland. runtii waxaa moodaa dawladdii muhiimadii ay siin lahayd amniga inay ka mashquushay oo runtii ay dayacaad weyn ka muujisay in magaalada amnigeeda wax laga qabto. waxaa runtii kaloo xusid mudan saraakiishii loo xidmaday inay amniga magaalada sugaaneen inay ku mashquulsan yihiin siyaasad inay ku mashquulsan yihiin oo ay ilhaamiyeen wajigana ka laabteen magaaladii Boosaaso oo ay mas'uulka ka ahaayeen inay amnigeeda sugaaneen. haddii ilaahay idmo waxaan leenahay reer Boosaaso wax yar baa idin dhiman
ama bulshooyinka reer Puntland meel kastoo ay joogaanba oo runtii dhammaantoodba amni darro ay dareemayaan wax yar baa inoo ka dhiman isbedelku hadduu yimaadana insha Allah muhiimadda koowaad baan siin doonaa iyo labaad iyo saddexaadba amniga ayaan siin doonaa haddii Ilaahay uu raali ka noqdo runtii waxa aan kaloo rabaa inaan halkan ka soo jeediyo hambaliyo aan u dirayo dadkii walaalaha ahaa ee ku dagaalamay gobolada Sool oo runtii muddo dheer colaadoodu ay soo taagneed oo maanta la soo afjaray nabadna qaatay waan ugu hambalyeynaya nabad ay qaateen runtii waxaan kaloo bogaadin iyo hambaliyaba u dirayaa isimadii iyo waxgaradkii ka qayb qaatay nabadeynta dadka walaalaha ah anigu ka musharax ahaan bil ka hor waxaan halkan kaga baaqay magaalada Garowe inaan si mug leh uga qayb qaadanayno nabadeynta dadka walaalaha ee ku dagaalamay khaasatan Taleex iyo Dumay dadkii walaalaha ku dagaalamay runtii waxaan ku bixinay dhaqaale wax ku ool ah ayaan ku bixinay $70,000 baan ku bixinay nabadeynta dadka walaalaha ah runtii maanta aad waxa ii farxad gelinaya inay iyaguna ay waajibkoodii ka soo baxeen oo ay qaateen nabadeynta oo ay dad maanta gacmaha is haystaan una dabaaldegayaan nabadda waxaan Ilaahay ugu rajaynayaa inay nabaddaas noqoto mid waarta colaad damana ayna ku soo noqon dadka walaalaha muhiimadda aan markii laga yimaado nabadeynta dadka walaalaha muhiimadda aan ka leenahay inaan dhaqaale ku bixino nabadeynta dadka walaalaha ah waxa kamid ah inaan doonayno inaan ugu gogol xaarno soo celinta gobolada Sool iyo Cayn aan ku soo celino gacanta Puntland maxaa yeelay haddii dadka walaalaha ahi ay nabad yihiin gacmahana is haysaanin waxa fududaanaysa in si dhib yar gobolada dalka gacantiisa dib loogu soo celiyo waxaan rabaa inaan u diro bulshooyinka reer Puntland baaq ku aadan doorashada maxaa yeelay wax yar baa inoo dhiman muddo 20 beri ah iyo wax la mid ah ayaa inoo dhiman in dalka uu ka dhaco doorasho ay ka dhacdo waxaan rajaynayaa inay ka dhacdo doorasho xor iyo xalaal ah ay ka dhacdo dalka qof kasta oo reer Puntland ah mas'uuliyad baa ka saaran inuu ka qayb qaato istiqraarka iyo nabadgelyada iyo wadajirka reer Puntland waxaan leeyahay inaga oo wixii xun meel uga soo wada jeedna haddana inaynu waxa wanaaga aynu haysano aynu gacnaha isku qabsano aynu doorashada ku gaarno inaga oo nabad ah gacmaha haysana doorashadu ayna ku dhacdo waxaan rajaynayaa insha Allah 20 beri ka bacdi in dalka uu ka dhasho isbedel umadu ay ku diirsato waxaan leeyahay assalaamu calaykum wa rahmatullahi